dhammaan waxaan u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha sharafta leh ee ugu horeeyaan maamulka jaamacadda Hormuud iyo dhammaan ardayda kale naga aqbashay inay barnaamijkan qiimaha badan nagala qayb qaataan anoo matalayo foundationka AGN oo ku mahadsantihiin waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha inuu marka labaad iyo saddexaad barnaamijka kusoo dhawaado oo noo daahfuro idinkan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin barnaamijkan qiimaha badan run ahaantii farxad weyn ayay inoo tahay in aan seminaarkan daahfurno oon kusoo dhaweyno jaamacadda Hormuud ardadeena sharafta leh haminaya sanadkan inay amba qaadaan waxbarashada heerka sare ee darajada koowaad run ahaantii xilligaa markii la maraayo oo qofka ardayga ah nasiib fiican uu leeyahay hadduu helayo seminar lagala talinayo waxa uu baranayo iyo si uu culumtan faraha badan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey oo tirada ka badatay seminaarkaas oo runtii ay soo qalqaaliyeen raggaas dhalinyarada ahna way mahadsan yihiin in oo maxaa lahaa qaadataan kadibna insha allahu tacaala maskaxdiina wax badan ay isfurfurto kadibna waxaan rabnaa in insha allahu tacaala raggeeda ayaa tiine waxaa la rabaa marka in la sugo cilmiga markii la baranayo waxaan aad ugu mahadcelinayaa jaamacadda Hormuud University oo naga ogolaatay nagana qayb qaadatay in hoosta garayso barnaamij noocan oo kale ah barashada cilmiga dhulka ama geoscience-ka waa kulliyad aad qiimaheedu u weyn yahay sidoo hadda injineerku idin sheegay qayb ka mid injineerku kulliyo sheegay inaan barano aniga in la hadlaayo waxaa kamid ah dadka wax ka bartay culumta geoscience-ka soo waxaan aragnay faa'iidada ay leedahay sida loogu baahan yahay laakiin ay yartahay wacyigelinta bulshada ay ka haysato barashada dhulka marka waan sababta aan u yeernay aan u sameynayno wacyigelinta noocaan oo kale ah aan u gaarsiinayno dadka bulshada Soomaaliyeed dhalinyarada jiilka soo baxay hadda iskuulada soo dhameeyay aan u sheegayno fursadaha jira iyo meelaha ugu muhiimsan inay tahay geoscience wax laga barto cilmiga dhulka ee fursadiisana jirto geoscience-ka saan hore soo sheegnay yaa darsi kara ama yaa baran kara markaynu ka hadlayna markaan leenahay yaa baran kara ama yaa darsi kara waxaan nidhi maxay tahay waxa baran kara ama darsi kara qof kasta oo dugsi sare dhameystay dugsi sare markaan ka hadlayno especially maadooyinka science-ka markaan ka hadlayna maxaa ka mid ah physics-ka maths-ka iyo chemistry waa muhiim geoscience markii la dhaho wuu ballaaran yahay macnaha qaybo kala duwan uu leeyahay qayb ka mid ah waa mining-ka geology-ga asagana waa qayb ka mid ah markii la dhaho marka geoscience waxaa ku baranaysaa qaybihii oo dhan mining-kii qaybaa ka qaadanaysaa petroleum-kii qaybaa ka qaadanaysaa geology-gana qaybaa ka qaadanaysaa meeshaan waxaa kugu qoran sida ka muuqda slide-ka geology maxaa la dhahaa geology qof walba Soomaali hadii la weydiiyo inta badan waxa ku soo dhacay geology la dhaho wax dhulka laga soo saaro Sooma wax dhulka laga soo saaro waa badan biyaha dhulka laga soo saaraa beeraha sida loo yaqaan agriculture-ka ayagana dhulka laga soo saaraa macdanta ayadana dhulka laga soo saaraa markii geology la dhaho si specially am si qayb ahaan waxa laga wadaa barashada cilmiga dhagaxyada kala duwan ee dhulka saaran macnaha ama wax walba ee dhulka saaran tusaale ahaan markii wax walba la dhaho waxa soo galay biyihii waxa soo galay ciidi waxa soo galay sidoo kale geology macnaha dhagaxyada ciidi dhagaxyada iyo macdanta dhamaan laakiin today adduunka waxa waaye horumar badan la gaaray waxa la ogaaday resources ka la haysto ee wadan walba uu leeyahay ama macdan ha ahaato ama biyaha aadaan ama beeraha aadaan waxa la ogaaday in waxa ugu badan ee hadda aan la isticmaalay inay tahay resources ka loo yaqaan macdanta wali lama isticmaalin macnaha Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha opportunity-ga badan oo ka jiro ama fursad badan ay ka jirto qaybta geoscience am sure haddii aad barato kulliyadda geoscience fursadda hadda imaan doonto inaad qayb ka noqon doonto macnaha qofka hadduu geoscience barto muxuu helinayaa macnaha shaqo ahaan waxyaabaha uu qabanayo hadhow maxay noqonayaan qofka hadduu geoscience ka baxo muxuu qabanayaa wuxuu noqon karaa environmental consultant qofka la talin dhanka cimilada inuu noqdo salahan cimilada waa aragteen Soomaaliya aad looga hadlaa waxa leeyahay waqti isbedel soo socdo xilli xagaay xilliyo kala duwan kuleel marka qaar inay noqoto marka qaar roob in la waayo
qofku wuxuu kula noqonayaa qof ka shaqeeya qaybta environmental consultant oo ah la talin dhanka cimilada. waxaa farxad inoo ah maanta inaan intaan oo arday ay ka qayb qaadanayaan seminar ugu magacdaray geoscience. runtii annaga markaa geoscience baranaynay ama 3 sano ka hor ama 4 sanoba aan ku soo biireynay maanaysan cid nagala taliso maanaysan jaamacad inta soo abaabushay urur noo sheegay muhiimadda iyo waxyaabaha looga baahan yahay ardayga. maanta waxaan rajaynayaa inaad wadaysatiin wixii requirement ah idinka baahnaay. waxaan rajaynayaa inaad fahansantihiin muhiimadda ay leedahay. waxaan rajaynayaa in qof walba uu ku dharagsan yahay waxay tahay in la barto kheyraadka dalka iyo baahida loo qabo. haddii aan isbarbar dhigno awal waxaan ka aaminsanayn geo ama juqraafiga cilmiga juqraafiga inuusan ahayn wax aad u muhiimsan balse waxaan islahayn haddaa juqraafi bartid wax aad ka helaysid ma leh wadanka waad u jeedaa qallaasiisa balse waxaan ogaanay maanta wadanka inuu noo baahan yahay anaga nahay dadkii soo saari lahaa juqraafiga. wadankeena sida la ogyahay waa wadan walba wuxuu leeyahay resources. anaga wadankeena resourceska wuu leeyahay balse ma haysano dad ku takhasusay resourcigaas si ay soo saari lahayn. dadkii soo bartayna waxay ka baqayaan dadka kale. haddii dadka la dhiirigeliyo mar walba sidaan oo kale loo wacyigeliyo waxaa hubaal ah in dadkoo idil ay u istaagayaan resourciga wadankooda een horumarinayaan een bedeli doonaan wadankooda. waxay ka aaminsan yihiin ay isdhihi doonaan wadankii waa wadan aad resources u leh. waxay noo tahay farxad weyn maanta inaan ka soo qayb galno seminaarkan soconayay maantay oo taariikhdu tahay 2 bisha July kaasoo ku saabsanay in ardayda Soomaaliyeed ay helaan orientation ama jihin ku aadan barashada geologiga iyo cilmiga dhulka. waxaan marka koowaad rabaa inaan mahad celiyo groupka AGN oo soo abaabulay barnaamijkan aadka u quruxda badan iyo sidoo kale jaamacadda Hormuud oo ayagana fududeeyay programkan inta ka dhaco. runtii waxaan ognahay wadanka Soomaaliya inaa ogtihiin in wax badan ay ku jiraan oo kheyraad ah markastana waa la sheegaa kheyraadkaasna cid ka faa'iideysta ma laha.